بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه درسك كوبا إن شاء الله تعالى wuxuu ku saabsiisan yahay alwaasic الdiiniy waasica fi luga alcarabiya ay alxaabis aw ilkaf waxa wax kaa celiya ama waxa wax joojiya macno labaadna culamada qaar way sheegaan oo waasica ilhaamkana waa la yidhaahaa labada lafdiba waxay u daliishadaan qisadii nebiyullaahi sulaymaan fahum yuusacuun ciidamadiisii markii waa laysu celinayey waa laysu joojinayey ama rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calay awsicnii alhimnii na waa ku fasiraan calaa kulli xaal alwaasic iddiini waxaan uga dan leynay waxa weeyaan culamaai nafs waxay dhahdeen bini aadamku wuxuu leeyahay wax dawaafic la yidhaahdo wax ku bixiya oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ku abuuray oo loogu talagalay nolosha inay qayb horu socodkeeduba inuu iyada ku dhisan yahay iyo wax keena waxaa in si fiican loo isticmaalo joojiya dawaaficdu maala dawaafic jinsiya ilaahay dadka wuxuu ku abuuray rag iyo dumarku inay isu baahan yihiin waxaa bini aadamka ku abuuran daafic xubu tamalluk inuu wax yeesho waxaa ku abuuran bini aadamka xubu الظuhuuri wالtamayuz inuu muuqdo waxaa ku abuuran bay dhahay bini aadamka xubu اlistiknaa curious inuu wax ogaado laakiin waxay leeyihin waxaase haddii sidooda loo sii daayo waxaa ku abuuran inuu wax cuno waxna cabo laakiin waxaasi waxay u baahan yihin bay yidhaahdaan kawaabix ama dawaabit laakiin kawaabit uma baahna bay yidhahdaan qolada afcarabi ku hadasha kawaabixdu waa break wax joojiya wax xadeeyo ka ilaaliya in si xun loo isticmaalo in se la dafiro oo la diido looma baahna oo kabti lagu sameeyo waxaynu hadda u dan leenay markaa waxa weeyaan bini aadamka maxaa ku bixiya inuu samaha sameeyo qaanuunka raaco bulshada waxtar u yeesho maxaa ku bixiya diida inuu xumaha sameeyo dhibtu inay dhacdo sharka inuu ka weecdo waxay dhahdaan culammadu inta ugu badan leh waa qayb daakhiliya iyo qayb khaarijiya bay yidhaahdaan waasicaas ama si kale haddaynu u tilmaamno laba gudaha qofkay ka yimaadaan bay yidhaahdaan labana waa dabadday kaga yimaadaan laba qofka gudihiisa ka yimaadaana waxay yidhahdaan waa addaafic alfitri aw alwaasic alfitriy abuurka ilaahay siduu bini aadamka u abuuray iyo muctaqadaadka iyo diinta uu rumaysan yahay labadaasi waa laba shay oo nolosha qofka suluugiisa iyo dhaqankiisa kontaroolo oo waddo mariya laakiin qofka gudihiisay ka yimaadaan labana dabadday ka yimaadaan bay yidhaahdaan waa aلsulطa wاlmujtamac bay yidhaahdaan waa maamulka iyo qaanuunka iyo sistamka iyo bulshada iyo dhaqamadeeda iyo taqaaliiddeeda saddex baynu tilmaami laakiin anigu waxaan u socdaa un alwaasic diiniy oo anu arkayo inuu yahay ka ugu muhiimsan ka koowaad waasic alfitra ama alwaasic aljibiliy ama culamaa usuuliyiin usuul fiqiga culamada qorta waxay dhahdaan alwaasic الطabciy aw الطabeeciy sida ibnu cabdisalaam iyo ibnu اlqayim iyo shaatibi iyo siyuuطi iyo kani waa fitrada abuurka wax ku saabsan oo waa maxay
إلهي باب بني آدم كسق من وأبوري ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سق من بان وأبوري با إلهي لي سبحانه وتعالى إلهي باب بني آدم كوحكت الماما فطرة الله التي فطر الناس عليها إلهي باب كو أبوري قفكو إنو قمناضو وقفك بني آدم كاي هدي أنا يو إيمانين وحيابها خارجية وأنا لوعوعينين سيدي إلهي وأبوري لو دايو حماهنا ونعيا بيد هذا سبانا وشعلانيا قفك بني آدم كي بفطريا بعدالة دو شعلي أبو رهان بالظلم جو نعبيه إلهي بس هو أبوري لكن وحيابا خارجي انت كوي مادام way weecin karaan wixii cadaalad ahana dulma igu sawiri karaa wixii dulmiga aha cadaalad bay igu sawiri karaa kaasi waa shay kharijiya laakiin aslul fitra imka hadaad aragto qof yaro halka lagu dilayo aslul fitra wad ka naxaysaa aslul fitra qofka la dulminayo ma ogola sida ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii waa bisawxu tilmaamay البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس سموه وأخلاق في عنده دنبقنا ووحى نفته يكون حسيلي ويدي ديده يعني وحط المام يا نبي عليه الصلاة والسلام وحي أن نصوص شرعية كصاء أرور هذا نسوي ده هدنا أي نفته ديده إنه إثم جاي ما حما هينو جاي كاسي وازع فطري لكن انت بدن ظروفات قفكو كنول يا ديغاندا يا انفايرمنت كبيئه بلشده دقمده وحاسا خلخليه سوغيد النبي عليه الصلاه والسلام وحوت المامي المه انه كدشو كل مولود يولد على الفطره لكن ابها يهويدا ما افكار يهودات راسيه ما كو مجوسيه ما كو ديما كلا راعيه waxaa kaloo dawaabiddaasi aan tilmaamayna ka mid ah si guud un baan iyaga u tilmaamaynaa waasic almujtamac bay yidhaahdaan ama addaabit almujtamaciy bulshada iyo dhaqankeeda iyo caadaadkeeda oo bulshadu waxbaa jira sababdu doonaha u soo samaysmee markuu xad soo gaadho qofku aanu bulshada la waajihi karin uu ka xishoonayo isleeyahay war dadkaa kula yaabi doona waxa haddaad samayso تطبو كل يابي ولذلك هو حديث كان وبسلفتي سنبي وحوت المامي وكرهت أن يطلع عليه الناس تبي وحويا وحى نفتنا أيديده إسلام كان أدنى عضدت كوينة كوا أركان مركب بلشة حشادات كحشون السنة دوال ولا يابي أما وحني وحدتك وين هرتي سلوصة ما يماها أيوة المامية مركب وحيد هذان أن بلشة يدق مدد ومررك قاركود بميزان حساسية يحي وحدده البر والإثم هدي النصوص الشرين نبينا عليه الصلاة والسلام هل حديث ما بينه تلمام دوناي نبوي موشاركي سوك عوضا حديث إمام البخاري في الأدب المفرد كو أرورين أيوه شيخ الألباني لا حسن صحيح نبا شاركي سوك عوضي دبتنا إلهي رسول كيسيبو يموحي إن لي جارا يؤذيني إلهي رسول كيسيبو حلا يمد إيشارة ورد بيقو هيا درس لبضان أيان لا يهيبو يري محان يالا نبيقو تلوسي ألابت هذا انت تصور رسطو بنان كاردقو بنان كافر يسيبو يري ودادا دادكو مرأيو ودادكو مركا كوي مادانا لا يرادو واربحاكو ودعي وشي ninkii sidii taladii nabigu qaato intuu alaabtiisa qaato halka banaanka fadhiistay war maxaa guriga ka soo saaray waa maxay dhibta ku haysataa war mid halkan aan guriga kaga jiri waayay buu yiraahdaa mid baa soo saaray cidii soo martaaba way habaarta war habaar qabaani muxuu dadka guryahooda inay deganaadaan u diiday sidee wadan calanay u habaarayeen ayuu ninka arkay bulshadiiba inay isaga ku soo jeesatay wuu u yimi oo wuxuu yiri warniyahow irji ila manzilik فوالله لا أذيك وأنا يقول لك إسكان نقو دب كودي بما يه برشدي دب كودي بما يه يقول لك إسكان نقو أيضا حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وحتسيه مجتمع
مسألة la sameeyey waa wiqاayaة للمجتمع الذي راaqب ma xadaث waxay ilaalin u tahay bulshada kale waxaasoo kale haddaad samaysay waxaas kugu dhacayaan inay tahay waxay kaloo u tahay dersi ninka kan lagu celiyey ninkii wax dhibayey waxa ku filaaday bulshada cadaadiskeedii pressurekay bulshadu ku haysay ayaa keenay inuu ninkan ka foqo iska daayo marka waxay yidhahdaan bulshadu marka caadooyinka iyo dhaqamada iyo waxaan samaysmaan way adagtay qofku inuu khilaafo haddaanu dee xaq wadin inuu waxaasi khilaafo oo wuxuu ka xishoodaa war dadkaa kula yaabi buu isleeyahy waxaa la odhan doonaa ninkii weynaa war wuxuu samaynaya waa maxay sida ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii dadka badan dilay wuxuu kula taliyey meeshan uu degan yahay inay ardu suu tahay oo dad aan xumahaba diindaynin inay degan yihiin ee meeshan iskaga tag ilaahayna dee qur-aanka nebi maxamed baabuu u tilmaamayay watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaah idan bulshadu daqdigeeda iyo brasharkeedu qofka bini aadamka wax waa ka joojin karaa laakiin kanina ma xoog badna waayo waxay ku xidhan tahay uun qofku inuu meeshan ka baxo meel aan laga garanayn hadduu tago wuxuu doonu sameeyaa meel aan laga garanaynin oo aan la odhanaynin warsoodigaan ceeboobaan waxa samaysay wuxuu doonu iska sameeyaa bulsho ka nooc gadisan waayo waxaan can qanaacatin iyo can diinin ugama tegaynine cadaadiskii un bulshadu ku hayay waa waxaad iyo goor ku dhici jiray dadkii dhallinyarada ahaayee intay iskuullada ka baxaan yurub loo diri jiray iyagoo madhan dabeetana waxay soo noqon jireen iyagoo sarajooga ku kaajayo khamriga caba ama wax la nooca waayo dadkii ay ka xishoonayeen iyo bulshadii ilaalinaysay ka dhex baxeen waxay u tageen meel ardu suugii uu nebigu ninkan uu sheegay uu yidhi ka tagoo kale ah dabeetana waa iska firin bidheen waayo ceebba maaha waxa kan waxa ku hayay bulshada pressure ku haysay ka saddexaad waxay idhahdaan waa asulta waalqaanuun qofku waxaan xumaa wuxuu uga baqayaa systemka iyo nidaamka jira iyo qaanuunka ciqaabaya marka hadduu arkayo dee nin booliisa hadduu arkayo waxaa samayn maayo hadduu arkayo auditkii inuu xisaabinayo xisaabta ku jira waxba isweydaarin maayo laakiin kuwa ishoodu hadday yaro laabanto wixii isweydaarin karaba wuu isweydaarinaya sulطada qaanuunka iyo haddii la adkeeyo waxay idhahdaan yurub iyo north america nidaam baa yaalla system baa yaalla war system ay dadku ogol yihiin ma jira waa la sanduleeyey jeebkooda qof walba la baadha waxaa ku soo galana waa la garanayaa gaadhigaad meel qaldan dhigtay lacag bixi waddadaad dheeraad ku martay lacag bixi halkan baad istaagtay ganaax baa lagu wadaa dadka ganaax baa lagu sanduleeyo lagu aqbal siiyey inuu qof waliba system raaco qumanaado laakiin isna ceebtu leeyahy waxa weeyaan haddii qaanuunku uu gam'o ama isha isku yaro qabto ama qofku meel aan qaanuunka lagu arkaynin uu joogo wuxuu doonu isna sameeyaa dadkan dowladda xada waxaan sameeyaa hadduu is leeyahay sharcigaa lagu marinaya dee wuu gabanaya laakiin hadduu og yahay qaanuunku mid xooggan inaanu ahayn wuxuu rabo wuu isweydweydaarinaya waxaa taa kaaga daran kuwa mutanafidiinta ah ee iyaguba qaanuunka dejiya ama iyaga laga rabo inay qaanuunka fuliyaan kuwana muu qabto masaakiintu muddo qaanuun qabta inta badan madaxda ma qabto meeshuu doonaha joogaan inta badan madaxda qaanuunku ma qabto waayo qaanuunka ama isagaaba qorqoray isagaa masaalixdiisa ku saleeyey ama dee isagiiba kii fulinayay ma adagta inuu ku qabto walidalik haddaan wuxuu qanaaca diiniya aanay ahayn tusaalaan ku siinaya reer galbeedka waxaa la yidhaha waa dad xuquuqul bini aadamka ilaaliya waa dad systemka u hoggaansanaada waa dad waxaasa saasaa laynoo akhriya marka waxaynu haysanaa qofka reer yurubka ee caddaanka ahi inuuna cadaalad badan oo xuquuqda ilaaliya oo dhaqankiisu sidan yahay oo quman inuu yahay laakiin dhowr tusaalaan ku siinaya
waddamadooda markay ka soo baxaan maxay samayn jireen markay mustacmiriinta ahaayeen maxay samayn jireen meelaan qaanuunkoodu qabanayn markay joogaan maxay sameeyaan مثلا maraykanku markuu ciraaq joogay muxuu samaynayay abu qurayb iyo meelahaasuu dadku guray ingiriisku markuu joogay afghanistan muxuu samaynayay dadka intuu soo qabtay askartu ku kaajaysay qof bini aadama lagu kaajayo meedar lagu dul kaajayo maxay samaynayeen مثلا guantanamo maxay u samaysteen hadduu qofka maraykan gudihiisa lagu xidho dee qaanuunka iyaga kale ilaalinaya qabanayo markaa waa adkaanaysaa wixii la doono in laga yeelo ama lagu sameeyo waa meel qaanuunka ka yara fog unge guantanamo la geystay marka waxaad doontaad samayn kartaa waayo sharciga iyo qaanuunkii waad ka bixisay mar hadduu qaanuunka ka fogaado siduu doon u samaynaya maxay belgique maxay afrika ku samaysay markii ay gumaysanaysay maxaa holandiyiintu ku sameeyeen south africa iyo indonesia iyo markay wadeen faransiisku muxuu afrikada waqooyi iyo afrikada galbeed ka sameeyey macnaheedu waxa weeyaan qaanuunku intuu isagu deganaa buu ku qabanayay hadduu ka baxo wuxuu doonana wuu dili karaa wuxuu doonana wuu samayn karaa mar haddaan qaanuunku qabanaynin haddaba waxaan u socdaa saddexdaa qaybeedoo horeba wax ka muhiimsan baan leenahay oo dadka munadam ka dhigi kara oo dadka samaha waafajin kara waa waasica diiniga ah alwaasic diiniy oo ah shay qofku markuu rumeeyo dhaqankiisa wax ka bedela shay qofku wuxuu samaynayo controla shay qofka waxa saxa iyo waxa qaldan oo labada wadatuu raacayo zaajiro ah qofka bini aadamku uu yeesho damiir iyo dareen xumaha diida khayrkana raadceeya walidaalika isagoo aan ka cabsanaynin intaanaynu sheegnayba waa ka mid oo ma lihin wax ma taraan waa ka mid systemka iyo nidaamka salafku aqwaasha inta badan laga soo naqliya maxay dhahay in allaha yazacu bisulطaani maa laa yazacu bilqur'aan aw maa yazacu ilaahay sulطaanka wuxuu ku joojiyaa lagu celiyaa waxaan qur'aan lagu akhriyaa celinin oo dadku dee ma wada fiicnaadaane in badan waxa ku jiraya afraad u baahan iyaga in maxay qaanuunka lagu qabto laakiin majority-ga waa inuu qabtaa damiirkiisu dadka inta badan waa in damiirku qabtaa inta yar buu markaa qaanuunku qabtaa maalan cahdigii uu nebigu noolaa iyo cahdigii saxaabadii waaweynay jooganaya kuwa imise qof baa gacan la gooyey kutub alxadiid haddaad akhrido baadho waa dhowr qof imise qof baa la rajmiyey cid markhaati lagu rajmiyeyba ma jirto waa dhowr qof oo iyagu qirtay dunuubta iyo ciqaabaadka qur-aanka iyo xadiidka ku qoran oo dhan imise qofba imisaa lagu xukumay waayo dadka majoritigiisa waxaa ilaalinayey waasica diiniga ah qaanuunku qofka iyo labada ka baxa ee markaasi gafa buu qabanayay waasican aynu sheegayno markaasi diiniga ee culamada psychologiga alwaasic addiini aw aldamiir aw alwijdaan ama waxaa yidhaahdaan في شريعة markaynu joogno waa masaa'ilka lagaga waramo muraaqabaة الlah ama alxayاء min الlah أو الkhashية أو التaqوى أو الwarc أو makhaafaة الlahi والrajaaءi waxaasoo dhamme waxay ka warramayaan waa ashyaa lagu tilmaamayo qofku damiirkiisa iyo qalbigiisu inuu kontroolo oo xumaha uu ka qabto isagoo waxaa ilaalinaya sawgeed baa ilahay qur-aanka tusaalayaal buu ina siiyey bini aadamku maalan haweenka iyo raggu way isu baahan yihiin laakiin waxaa la xadeeyey sifo sharciyo qura inuu ku dhici karo wixii intaa ka baxsan in la joojiyo intaynan qaanuunka tegin ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya nebi yuusuf waraawadatu alatii huwa fii beytiha can nafsi wagallaqat ilabwaaba waqaalat hayta lak waxaa laynoo sheegay wax allaaliya wixii qof niyad jebin lahaa ama waxaan u fudaydin lahay oo dhan bay samaysay kow waa gabadh magac iyo maamuus leh oo qoyska boqortooyada iyo xagga sare ka tirsan culama ay taariikhna ay yidhahdaan waa bay qurux badnayd oo selakhaa la odhan jiriyo kamaa la odhan jiro aad baabay u qurux badnayd bay culammaduna sheegaan taariikhda qora laba waa isaga sayidadiisii
oo dee isagu addoon buu ahayo iyadaa maamulaysay. 3 isagu nin dhallinyaraa buu ahayo aan reer lahayn, waa markuu u baahi badnaa, nin caafimaad qaba oo dhallinyaraa oo aan xaasya reertoona lahayn. 4 waxay tijaabisay inay wuxuu qarsoonaan karaan oo albaabadii iyo daaqadii iyo meel cidlo ah oo labadooda mayana cid kale joogin bay geysay. 5 dalabku iyadu ka socdaa oo inta badan raggaa wax hungureeya wax doona, marka kan iyadaaba dalabka wada oo le hayta lak. idan waxa laaliya wixii fudaydin lahaa inuu ninkani gabadh u tago ayaa meesha yaalla. laakiin qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamayaa qaala macaada allah, qaala macaada allah, ilaahay baan ka magan galay buu yidhi. innahu rabbi axsana mahwaaya, innahu rabbi, inuu ilaahay u jeedo waa lagu fasiraa, inuu ninkii guriga lahaa u jeedo waa lagu fasiraa. labaduba rabbi waa u yihiin, midna waa sayidu wa maaliku, de isagaa hentay leen oo uu addoon u yahay. dee allana waa allihii abuuray. axsana mahwaaya buu leeyahy. innahu laa yuflixu الظaalimuun. idan maxaa celiyey waasiciisa diiniga ah? maaha qaanuun, maaha sistamkii bulshada, waa fitradiisii saalixa ahayd oo heshay diin oo kobocday. waasicaasi diiniga aba xumaha ka joojiyey. bale qur-aanku wuxuu inooga warramaya qisadu inay sii gaadhay marka kan dalab bay joogtay, waabay isbeddeshayoo ciqaab bay isu beddeshay. haddaad samayn weydo waa lagu xidhayaa. way soo dhaaftay markaa markii hore gabadh doonisteed qura hadda waxay isu beddeshay maxay? lain lam yafcal maa aamuru, waxaan raba haddaanu samaynin layusjananna walayakuunanna min asaakiriin bay taagantay. xidhe oo xidheeyo kuwa dulaysan ka mid dhige. markana qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa xataa inaanu jabin markii la yidhi waa lagu ciqaabaya. oo uu leeyahay maxay? rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh. ilaahay ow xabsiga ayaa agtayda laga door bidaya waxay igu yeedhayaan. inaan zine iyo xumo ku dhaco waxaan ka door bidayaa xabsiga inaan galo. xabsigan ay ku hanjabayaan ayaa ka fudud inaan kan sameeyo. idan waasicu hadduu qofka waasica diinigii muraaqabatullah, ilaahay hadduu qofku dareensay inuu rabbi arkayo, wuu xishoonaya qofka muslimka. hadduu dareensan yahay wuxuu samaynaya in aakhiro lagu abaalmarinayo, wuu cabsanaya janno iyo naar inay jirto uu rumaysan yahay. hadduu dareensan yahay ilaahay inuu u nimceeyey, wuu arkayaa inay tahay nukraanuljamiil, ciddii ku wanaajisay inaad xumayso. allihii waxaanoo caafimaada iyo xoog iyo intan ku siiyey, inaad wixii uu ku siiyey ugu abaalguddo inaad macsidiisa ku samaysaa, nukraanuljamiil inay tahay. wuxuu arkaya idan qofkan waasica diiniga ahi qofka bini aadamkaa noloshiisa wuu kontaroola. saasi awgeed baa inta diintaadu leegtahay hadba ayuu suluugaaga toosnidiisu leekaanayaa. walidaalika buu nebigu wuxuu lahaa calayh الsalaatu wasalaam laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min. xadiidkii saxiixaynka ka zinaystaa ma zinaysto isagoo maxay ah? isagoo kaamiluliimaana, yani isagoo iimaankiisu dhammaystiran yahay. waxaa jira baa la tilmaamayaa oo uu zinada uga joogi waayey waasici ka joojin lahaabaa dacfi ku galay. dacfu iimaan baa jira. ka khamriga cabbayaa ma cabbo isagoo maxay? mu'mina. tuugga waxadayaa ma xado isagoo maxay? mu'mina. ka wax boobaya wax ma boobo, boob ay dadku wada eegaan ninkani wuxuu dhacay badnidiisu intuu leegyahay isagoo mu'mina baa la yidhi. waxaasoo dhan maxaa mu'mina loogu rakibay? waa waasica diiniga ah. waasica diinigii waa ka keenaya wax dunidu qaanuun iyo cilmi iyo dowladnimo iyo xoog iyo dhaqaale inta la isugu geeyey lagu kontarooli kari waayey inuu waasic diiniga kontaroolay. يعني maka iyo madiine iyo carabtii meeshaa joogtay khamriga way cabbi jireen markii islaamku soo degay. markuu islaamku soo degay khamriga waa xaaraan lama odhan, iyagoo muslim ay cabbi jireen. saxaabada taqaana rag badan oo ka midi 15 sannadood bay cabbayeen.
13 sano maka la joogay iyo 2 sano Madiina la joogay 15 sanadood bay cabayeen yaa cabayay tii Hamza iyo Sayyid Shuhada iyo Sa'd ibn Abi Waqqas raga taqaano weeyaan raga khamriga cabayay way xalaal buu markaa wahaa waxaanu ahaa khamrigu tijaarada ugu badan ee laga tijaareeyo erayga taajir haddaad aragta bay yidhaahdaan wakhtigaa wuxuun baa loo isticmaali jiray ninka khamriga iibiyuunbaa taajir ahaa yani xoolo kaasunbaa ka dharagsanaa wuxuu lahaa meelo calan laga taago wuxuu ahaa yani caadadka ugu tirada badan lee bulshadu ay leedahay dadkan diintoodii iyo iimaankoodii baa la dhisay kadibna waxa soo degay quraan leh waa rijsun min camali shayطaani fajtanibuuh waa qurun shaqo shaydaan ka mid eh fajtanibuu ka fogaada waa erayo booliis lama dalban xabsiya lama sii dhisin wacyigelin kale lama samaynin dadka looma yeedhin mujarad iyagoo cabaya oo u fadhiya weli ayaa kii dhawaaqayay dhawaaqay isagoo leh alaa ina alkhamra qad xurimat waryaadhaheen war khamrigii waa la xaaraanimeeyey waxay idhahdaan kuwii kooba beegaga haystay lagu cabo dib umay kaban oo iska dhigeen kuwii afka ku haystay afka intay ku hayeen may liqina way tufeen wixii weel ku jiray waa la qubay bal weelashaa la jajabiyey weelasha khamriga lagu samayn jiray waxa la yidhi burburiye weelasha khamriga la burburiyey waxay dhahay magaalada Madiina suuqyadeedii khamro dareereen khamri ayuu dareeray khamrigii markuu uu joogsaday maxaa joojiyey waxaa joojiyey waasic diiniya iimaan qalbiga galay iyo dad kaloo dareemay ilaahay weynidiisa iyo aakhiro dambaysa iyo noloshan inaan lagu waaraynin iyo alla ka cabsi galay baa baabi'iyey walidalik yaa xadiidu imaam alciraaqi sanadkiisa jayid ku sheegayo waxau tilmaamayaa xadiidku إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعدا من نفسه يأمره وينهاه قفك إلهي هدو خير لدونه نفتيسة أيا لوغا سميا مد وعدية وناك نفره حمهنا كعلية هو عكس كذا نوعطان الدنيا ده ودنك يوقو حق بدنا هنا سكوت ديي ينو تشوتشيو وتاقواي مريكان با 1919 كي u ololeeyay oo dawladoo dhamay aqbashay oo baarlamaanadooda aqbaleen oo madaxweynuhu saxeexay oo afti dadka laga qaado la aqbalay oo la yiri qaanuun ma aha waa dastuur qaanuunka lagu ma darin waxa lagu daray maxay dastuurka wadanka lagu daray khamrigu mamnuuciyay oo dhowr iyo 10 sanadood dagaalkaasi la waday oo iskuulada iyo jaamacadaha iyo meel walba lagu dhigay oo kadib markii boqolaal dad la dilay iyadoo aanay badnayn maxkamadaha dilka qaada ilaa 200 qof baa problemskiisii loo dilay oo gangiskii bateen oo blind drugska waxay oran jireen maxaa la yidhaahdaa suuqii madooba ee lagu sameynayay mid dadku ku indhabeelo oo ku wada waasho la sameeyey oo wixii tirabatay dawladdu u taag weyday dawladdu markii dambe waxay yidhaahdeen war waxaan ma joojin karaynaa maxaynu samaynaa amadman dambe wax dambe isna dastuurka lagu qoro amandka 17 mise 18 bikaliye ay dib u soo saareen oo ay leeyihiin hal la jooji khamrigu waa fasaxe wuxuun baa dawladda dhexe la hadhay qofka intaa cabsaneen aanu gaari kaxayn karin intiisa kalena federal state goboladu say doonaan hawla dhaqmaan macnuhu maaha khamriga wanaag ka soo baxay ee waa loo taag waayay weeyaan haddana waxa xagga u sii socda drogooyinka way la dagaalameen waa xidhxidheen waa dileen wax kasta waa la sameeyey waa la joojin kari laayay xaggay u sii socotaa hadda kolba in yar in la fasaxo hadda tadawada abaa la ogol yahay kuwii barbartay bal kuwa ha la siisiiya iska cabaan haddii kale wax xanuunsanayaan kuwa kaloo medicine loo isticmaali karo oo ah dadkan maxaa la yidhaahdaa xanuunada adag hayaan iyo morphine iyo waxaa lagu mudmudo ha lagu sakhraamiyo painkillers looga dhigo waa soo wadeen meelaha qaarkood ha la ogolaado way soo wadeen qaarkood waxay ogol yihiin qolal gaar oo lagu cabo qaarkood waxay ogol yihiin xilliyo gaar oo la cabo qaarkood waxay ogolaadeen
noocyo gaaroo la cabo ta khafiifka ha la cabo oo ha la ogolaado beera ayaan laga beerin laakiin haddii daawada loo beerayo waa la beeri karaa beeraha qaar baa looga marka waa la soo wadaa imka beeraha badh baa la ogoliyey cabista badh baa la ogoliyey iibinta badh baa la ogoliyey meelaha lagu cabayo meelaha la ogoliyey and after a while waqti dabadeedna khamrigii un bulan mid noqon doonaa la fasaxay sababtu ma in cilmi soo kordhay baa maya waa in bini aadamka la xadidi kari waayo la controli kari waayo waa in bini aadamka la ilaalin kari waayo waxaan leenahay waxaasoo dhan waxaa ku filan waasica diiniga ah dadkii markii diinta lagala dagaalamay ayay noocan soo baxeen bahallada wada ah waasica diiniga ahi waa ka nusuusta qur-aanka iyo xadiidku bale culammadu waxay idhaahdaan cibaadaadkuba waxay sal u yihiin inay waxan beeraan walidaalika haddaad qur-aanka u fiirsato ilaahay kuwii intay alla garteen haddana xumaha sameeyey waxa lagu yidhi qul man yarzuqukum min الsamaaءi wاlأrض aman yamliku الsamca wاlabصaar waman yukhriju اlxaya min almayiti wayukhriju اlmayita min alxay waman yudabiru اlamra fasayaquuluuna allah baa ilaah yidhi bal waxaad weydiisaa kuwan waryaa idin arsaaqa cirkiyo dhulka idinka arsaaqa ilaahay bay odhan waryaa dhagaha iyo aragga iyo waxaan oo dhan hante markii lasoo tilmaamay waxaasoo dhan la yidhi ilaahay bay odhan doonaan ilahay wuxuu ku yihi faqul afalaa tattaquun waxaad tidhaahdaa waxaane macrifadu midhihay dhalinaysay meeye markaa alla ka cabsiga xagguu maray saa daraaddeed ba qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa cibaadadaba gaayadeedu inay tahay waxaan leynayay cibaadaysta gaayaadka ugu waaweyn inay ka mid tahay marka inaan aakhiro ka fekerin adduun ka fekerno inay beerto waasica diiniga taqwo la yidhaahdo يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون با إلهي وارددوا إلهي عابد باليدو عبادة لك عليها إلهي إذن أبوري عابد إذن كي يكو إذن كو الريبا حلو عابد كي تتقوا با إلهي لي لعلكم تتقون إن وازع كان تقوى الله إذا هذا قفك حماها كإلاليا إنه بيرمد درادد إلهي عابد ولذلك مسائل كان نوعا كورميا بشريه اكتيده تاريخ ديدي هورنا معروف كاي كواهي قران كان كوي وسو هردغا كورميا مساله التقوى يعني القران كان مكي هو دبي كبوخدا سوره العلق ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى اكو حيغا ارايت ان كان على الهدى وامر بالتقوى ان سورك مكي غابه هلكا كتاغنتي waayo cibaadaadku danta laga leeyahay waxa ka mid ah in waasica kan qofku inuu xumaana ka weecdo samaana raacay inay beerto sawgeed baa ilaahay quraanka markuu salaad inoo tilmaamay maxaa la yidhi ina salaata tanha can alfaxshaa'i walmunkar salaadu waxay reebtaa xumaha waxa salaada loo tukanayo koowaada la rabo in laga midho dhaliyo waxa ka mid ah inay salaadu noqoto nooc reebaya xumaha hadday xumaha dadku reebay haddaad aragto dadku intay tukadaan xaggana wax walaaqaya salaadani tii maaha salaada wax ka qasan yihiin dadka salaada loo saxo waayo saxaabadu kii ay yidhaahdeen mid bay yidhaahdeen way la yaabeen habeenkiina wuu tukan jiray nin salaatuleyl u kaca waxaana lagu yara xamanaya inuu wax yaro qaadqaado waa arrin aan isqabanaynin nin habeenkiina salaad u kacaya maalintiina wax yaro qaadqaadaya nebiga agtiisa ay arrinka ku sheegeen حديث الشيخ الألباني وحسن ما قلت المامي مركز النبي وحيري وحا شيغيسان هدي جيران يدك الريبي صلاته ستنهى صلاة دي ساك الريبي بالنبي يعني ملكدن بي دسيسا عبادتن كان هبين كي تاغاني ملكدن وا ودسميسا inuu xumaha iyo sabaha kala garto idan salaada danta laga leeyay baa waxa kamida ee muhiimadka ugu waaweyn inay beerto qofkan inuu samaha iyo xumaha ku kala celiyo إلهي صومك مركو ينو تلمامي وحين يلي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلا ذا محال لقدك لعلكم تتقون صوم بان لا يدن صاري سيدي كو يدي كيدي كو ريبا صومك الله صاري دانت الله الرباوة محي وازي عن دينك هينو بيرمو بسالة التقوى إني بيرنتو حجكي أعماشي اللي سمين يبا إلهي تلمامي
xajku waa meelo la marmarayo dhagax la tuurayo dhagax lagu dul wareegayo waxaasaa la soo samaynaya laakiin dan baa laga leeyahay kale ilaahay wuxuu leeyahay lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu التقوى منكم ولكن يناله التقوى منكم waxay culimadu yidhaahdaan markaas cibaadaadka danta laga leeyahay waxa weeyaan waasican diiniga ahay inuu dhismo ayay muhim ugu tahay xataa culamada qaar baa waxay yidhahdaan masaa'ilka tashriiciga oo dhan laftoodu waa inay zajri sameeyaan oo ah waasica kan qofku inuu xumaha ka taga inay ku beeraan سأوجد بين هاي وحلو ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون قصاصته شرعي قايل ليدن ماريو نولل بايدي كسو جنبا ليدي دتك عقل قالوا لعلكم تتقون أي كي تتقوا سيأيوب بيرانتو الله كعبسك كاني من وحين لنا هاي تقوضوا وأهبين لنا الغاية والحصيلة وحل الربا إنه مدهي كدشان diinta waxeedoo dhamme ama caqiida ha noqoto caqiidada waxa weyn un dee ilaahay iyo weynidiisa iyo cadamadiisa iyo inaad ka xishooto iyo inaad aragto inuu ku ilaalinayo iyo yowm alaakhir jazaag iyo abaalmarka iyo waxa ka jira waxaa loo fahmay cibaadaadkanna loo sameeyey nidaamka islaamigana u yimi malakadana inay dhisanto dadku inay yeeshaan waasic diiniya marka waxay yidhahdaan taqwadu maalan ama waa gaaya litakliif ama waa daaficu lililtizaami bihi waa labadaa mid bay yidhahdaan taqwadu ama waa gaaya litakliif waxaan layna faray wixii ka dhalanayey natiijadii laga rabay ama bay yidhaahdaan waa daaficu lililtizaam wixii keensanaya inaynu multazimiin ku noqonno sharcigu wuxuu sheegayey quwada qaanuunku mujrimiinta ayay ciqaabtaaye muxsiniinta ma abaal mariso qaanuunku muxsinka waxba uma taro ma abaal mariyo mujrimku u ciqaabaa ama masaladan aynu ka warramaynaa dee faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara masaladan ay abaalmar bay leedahay idan waasican diiniga ahay abaalmar buu leeyahy walaa tacmaluuna min camali ila kunaa calaykum shahuuda waxba ma samaynaysaan baa ilahay ilaa iyo waan arkaya ilaa waan arkaya macnaheedu waa maxay muraaqabada tani waa haddaad in axsantum axsantum lianfusikum wain asa'tum facalayha weeyaan hadday wanaag tahayna wanaaggan kugu abaal marinaya hadday xumo tahayna mushkiladdaa laguga abaal marinaya idan waasica diiniga ahi sida qaanuunku ciqaab qura iyo ciqaab qura maaha hawaabna wuu yihi oo wuxuu qofku rajaynayo qaanuunka maanta o dhan haddaad ilaaliso waxba idinku siin mayso mujarad inuu nidaamkaa guud hagaaga mooyaane milyankii ama dhowrkii qof baa qof la abaal mariyaa la yidhaahdaa qofkan jaa'isadaasaa la siiyey jaa'isaduna inta badan shahaado yar iyo waraaq iyo waxaasaaba isaga badan yihin la yidhaha waa la sharfayo qofkii ugu fiicnaa waxa kan waraaqdaasu helay laakiin malakada tani waxay keensataa qofku inuu abaalmar sugayo haddaba ayuha alikhwa dadka badh baa moodayaa haddii cilmigu bato oo jaamacaadku bataan oo kani sameeya inay ka fiil u tahay dadku dhaqan fiican inay yeeleen waa jahliga waxa kan meelahan ina mariyey waxba kama jiraan waayo waaqaca ka markhaati kacaya kuwii idinka cilmi badnaa ee jaamacaadka wanaagsan lahaa ee kan lahaa maxay dhaqankoodu noqday dhaqankoodu wuxuu noqday الأسلحة الفتاكة إنay sameeyaan dhaqankoodu wuxuu noqday masaakiinta inay ku xadaan dhaqankoodu wuxuu noqday dawladaha yaryar lagu gumaysto dhaqankoodu wuxuu noqday dawladaha yaryar dhaqaalahooda in lagu burburiyo dhaqankoodu wuxuu noqday nuclear weapon in lagu samaysto dhaqankoodu wuxuu noqday dunida in la saytareeyo oo dadka oo dhan la dulaysto idan waxaasoo dhamay cilmu ka dhashay aqoontii badatay ay dadka kala dheeraadeen waxay dhacal siisay inay dadka inta kale gumaystaan ama boobaan ama dhacaan ama liidaan idan maaha cilmigoo bata ee waxaan leenahay waasica diiniga ah baa muhima si awgeed baa dadku waxay in badan isweydiinayaan
waar dhibtii badatay maxaa la yeelayaa dhallinyaradii baa inxiraaf ku dhacay waxa kan baa dowladnimadii baa hagaagi weyday waxa kan baa war meel kale ha u cararin meesha u baahan inaynu saarno waxa weeyaan dadkan waxaynu baraynay iyo cibaadaday samaynayeen sulugooda ma bedeshay haddaanay bedelin waxaynu baraynaa wax sidii ahayn waxaynu baraynaa sidii loo baahnaa ahayn weliba maantana dhufaysyadii hore ma jiraan dhufaysyada hore waa maxay xadaarada jadiidkii bay yidhaahdaan ee dunida maanta jirtaa berigii hore waddannada iyo dadku qalcaday samaysan jireen qalcaddu maxay kaa ilaalinaysaa cadowga dee xusuun iyo qalaac iyo magaalooyinkii berigii hore o dhan dayr baa ku waneegsanaa qalcadaa ku dhex yaallay waaweyn dee ninkan faraska sita iyo ninkan waranka la ordaya iyo dadkan xiimaya o dhami kuma soo gaadhayaan ee waadeen derbigaasaa idin dhexeeyo kaa celinaya cilmigii markuu koray waxaa soo baxay in la helo derbigan wax lagu dumin karo ama wax xagga sare ka mari kara madfac iyo dayuurad iyo qalcaddii markaa waxay noqotay inay shaqo beeshay oo maanta inaynu qalcada ku wareejinno uma baahnin marka waxaa la sameeyey waddanno waxaa la yidhi xuduudda yaan laynoo soo gelin cid aynu inagu soo dayna mooyaane yaan cid kale inoo soo gelin oo maxaynu controlaynaa dadka afkaartooda iyo dhaqamadooda iyo diimahooda technologygan cusubina wuxuu keenay inaan gurigaagaba aanaad lahayn ciddii doonta inay ka dhex sheekaynayso gurigaaga t v baa yaalla mobil baa yaalla kan baa yaalla waxan baa yaalla marka meel gaaro aad leedayba ma jirto reerka iyo carruurtaad hadda ka soo baxday qolo kale u sheekaynaysa qolo kale wax baraysa oo wax u dhigaysa dadku isu furmay marka waxay dhahdaan qalcad fikriyina ma jirto mid maadiyina ma jirto adduunku globalization baa dhacay bay dhahdaan wuu isu furmay idan xusniga qudhe wax ilaalin karaa qalcadda qudhe wax ilaalin karaa waa maxay waa damiirka bini aadamka oo la dhiso waa caqaa'idda iyo dadku waxay rumaysan yihiin oo wax laga bedelo waa dhallinyaradan imbihaarku ku dhacay imbihaarku waa markaad fajacda ee yaabto ninkan caday cirka duulay malaa wax walba saasunbuu ugu fiican yahay bay dadku is idhaahdeen wax walba saasuu ugu fiican yahay bay moodeen sidaa awgeed modernismkoodii baa la wanaagsanaaday alxadaatha laakiin waxaynu leenahay aadanuhu ama nebi aadam iyo dhashiisii ha ahaado ama qiyaamaha kuwa uu ku dhici doono ahaado iyo inta udhaxaysa laba xanuunun buu leeyahy bini aadamkuma tatawuro waxbana iskama bedelin wuxuu haystaa tatawure uu gacmaha ku hayo laakiin insaanku waa insaankii uun insaankii 200 sano ka hor joogay waa kanuun 1000 sano ka hor kii joogay waa kanuun insaanka laba xanuunun baa ku dhaco bedela الشبهات والشهوات إن شبهة كل عدو عقيدته كحماته إيو عقيدته إنه ضعيفته رقم كحماته شهوات النفس إن بريك جودي لوايو أو بريك بيالله حقه ضربه وصعده مركا ولا بدن مشكله مركا كي هره وحي لو دوين جيرون بينو كنا كدوينينا ما هكذا التكنولوجيا هلا موبيل بو هيستا يا انترنت بو جا waxaan oo dhan waa laga daweyn karaa hadii uu furmo meeshan waasica diiniga uu galo qalbiga ay haduu furmo marka waxaan leenahay arur baa inxiraaftay waxan baa xumaaday saddex shay hadaynu sameeyno wax walba waynu hagaajin karnaa dawladnimadu way hagaagaysaa tuug noqon maayaan oo kuwa maamulka ku haya imka waxa laga yaabaa in la ilaahay hebel shalay buu meel yar loo dhiibayo dee laba guri reerka u dhisay marka qaanuunkii uu ilaalin waayo dee labadii guri uu soo xado uu dhistay bulshadiina mujtamaca koodina uu ilaalin waayo dee ma ceeboobine waaba ammaanay war nin rag oo reerkii laba guri buu sanad qura bu shaqeeyay reerkii laba guri u dhisay hadii ay bulshada odhan lahayd war waa tuukaasi oo la fanqooqi lahaa at least wuxuu noqon lahaa qof dee ceebaysan oo xuma sameeyey laakiin bulshada dhexdeediina مجتمع بريشر كيسينا ما جرو ده أمام بابا الله أركا قانون كينا إلالين مايو وما جرو فطرة دينا واتنا واقل دانتي ما حل كينا كلي جوية حل كينا كلي جاهي كون حوتشين كره هدو يسقو حوجوبه وين نوازع الدين قاعد بقول نقولنا تتكن وحي قلبي كنترولي هاي وحي كنترولي لها
waa inaynu dib ugu noqonno saddex shay haddaynu samaynana waxaa si u saxmayaa kow alcilm haddaynu samayno cilmigan ka warramaya waxa weeyaan ilaahay iyo aakhiro barashadeeda nebigu calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi xadiiskii saxiixayn ku yaallay inamaa ana aclamukum biاllaah waakhshaakum lahu buu yidhi anaa ilaahay idinku aqaan buu yidhi anaa ilaahay idinku aqaana maxaa kaa ka dhalanaya markaa waakhshaakum lah anaana idinku cabsi badan waa qoladii xamaasadootee tidhi nebiga dembigiisa la dhaafay aan sidan yeelle ka samayne gruubkii xamaasadu qaaday ee saxaabada ka mid ahaa nebigu calayh الsalaatu wasalam wuxu yidhi anaa ilaahay idinku aqoon badan dan anaa idinku cabsi badan marka waxaan leenahay war dadku wuxuu haystaa dhaqankii uu reerahooda ka soo gaadhay diin garan maayo walaa kuwiina jaamacadaha ka baxaa garanaya walaa kuwa meesha baa garanaya nin waliba intii malcamadda loogu soo dhigu diinu haystaa waxaynu u baahannahay in dib loogu noqdo dadkan caqaa'idooda la saxo caqiidadan saxayna maaha caqiide kalaamiya tii cilmu kalaamkee hore maaha tii cilmulkalaamka dambe salafigaana maaha kuwaasi mashaakil haystay xallilayeen mashaakilkaasina maba haysto maxaan uga jeedaa dad maanta oo dhan jahmiye dadka u sharaxdo iyo murji'a iyo muctasila dadkani murjic iyo muctasil iyo midna ma yaqaan waxaan adaa akhrinaya adaa raba intaad geliso inaad haddana ka soo saarto marka horena waad u sheegaysaa waad baraysaa markay bartaanna waad ka soo qufaysaa maxaa uma baahna waa dadkani arkaanuliimaan bay u baahan yihin in loo dhigo aliimaanu biاllaahi warasuulih wamalaa'ikatihi wakutubihi walyowmi alaakhir in loo dhigo dadkani waxay u baahan yihin in loo dhigo caqiido nool oo keenaysa ilaahay cabsidii iyo muraaqabadii iyo muxaasabadii wax qalbiga safeeya wax qalbiga safeeya qadaayaad caqliyo dihniya uma baahanin marka cilmulkalaamkii horena ma rabno cilmulkalaamka dambena ma rabno kuwaasi mashaakil wakhtigoodii taagnaa bay dawaynayeen dadkani midnaba ma haystaan bale waxay haystaan cilmulkalaam ka jadiid oo ilxaad iyo etiisam iyo ilaahdiid iyo diintu sax ma tahay iyo mid kalaa bay haystaan waan kaaba ahayn kuwa murankoodu ma yaallo idan waxay leedahay cilmaa loo baahan yahay aqoon waxaynu u baahannahay caqiido oo inaynu saxno oo qofkani uu xad uu gaadho alictizaazu biاllaah inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala weyn ku faano inuu rumaysan yahay waxyigu inuu la weynaado samada ka yimi ilaahay inuu arko inuu khabiiriyey oo caliimiyey oo xakiim yahay oo wuxuu isagu sheegaa inay sax yihiin adigu unbaa fahamku iska ilaali inuu kaa qaldamo sida awgeed nebi maxamed calayh الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisii markii nebiga la kaxeeyey la dheelmiyey cirka la qabadsiiyey waxaan bini aadam caqligiisa gelin baa ilaahay u sameeyey uu soo noqday quraysh muu ka qarinine wuu u sheegay markaasay qosqosleen ma maantuu taa la yimi bay dhaheen ma meeshaanu bisha u socon jirnay layskumaba haysto cirkaba xaggiisa waxba laysku haystaaba israaga hore in uu ka tegey maka oo uu tegey bayt اlmaqdis ma meeshaanu bisha u socon jirnaa tidhi xalay baaban tego haddana soo noqdo iyagoo nebiga saa ugu jeesjeesaya abibakar u yimaadeen markaasay dhaheen saaxiibkaa wuxuu sheegay ma maqashay oo muxuu sheegay waxay dhaheen wuxuu yidhi xalay baan intaan qabtay xagga ah ayaan haddana soo noqdo oo anigan jooga abibakar wuxuu ugu jawaabay lain qaala dalik laqad sadaq midhun hubi hadduu isagu yidhi waa dhab buu yidhi waa run waayo wuxuu rumaysan yahay ilaahay qadiira oo caalima oo xakiim oo casiiza oo dulquwati lmatiina wuxuu doono samayn karaa facaalu limaa yuriida buu rumaysan yahi wax weyn lama aha arrintu bini aadam hadduu yidhaha anaa sameeyey ha markaasaa muranku imanaya laakiin ilaahay baa sameeyey ma hubtaanuun buu leeyay inuu isagu yidhi lain qaala dalika laqad sadaq waxaan rabnaa caqiidadu inay nooca noqoto caqiida ay dadkan ilaahay ku kalsoonaadaan caqiidatii khusayma ah muxuu saxaabigaasi yidhi nin bay nebiga neef xoolaa kala iibsadeen nin reer miyiya
markaasuu soo ninkii baa yidhi waan waxba xoolahayga la siiyo murankii buu badiyey maaba kaa iibin xoolaa keen buu yidhi warsoodiga iga iibiye buu nebigu leeyahy isna may buu yidhi markhaati keense baa la yidhi dee nebi maxamed ciidana lama joogin markii ay kala iibsanayeen dabeetana khusayma yidhi anaa markhaatigaa furay maxaad furtaa la yidhi inuu kaa iibiyo ay sax tahay isaad sheegaysa oo khusayma noolamaad joogina maxaad ku markhaati furtay oo cirkaad nooga soo warrantaa war nooga keentaa ma geedkan dhabarkiisa intaad ka keentaan rumaysan waayey buu yidhi ilaa imka waxaad leedahay halkan baanu ku kala iibsannay aniguna waxaan kaa rumaystaa in samada waxyi kaaga yimi ood samada war ka keentay baan qaatay dee ma geedkan baan qaadan kari waayey buu yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi khusayma ninkuma markhaati kacaa lababa markhaatigiisu ku filan yihi idan ayuha alaxiba waa la addimay waynu iska soo koobayna waxaan leenahay inxiraafaadka dadka inaynu ka sheekayno ama qaylino ama oyno dumarkii baa xijaabkii dhigayay halkan baa laga baxay waxba waxaas ma bedelaan waxa wax bedelaa waa dadkani waxay aaminsan yihiin inaynu wax ka bedelno waxa wax bedelaa waa dadkan qalbigooda waxa gelaya inay wax ka bedelaan waxa wax bedelaa waa dadkan damiirkoodu inuu xukumo aanay bulshadu xukumin iyo dawladda iyo qaanuunkeeda aanu xukumin qofkani wuxuu samaynaya dhaqan u noqonaya inuu noqdo qanaacadiisa iimaankiisa inuu noqdo markaasaynu leenahay waasica diinigii hadduu dhismo ayaa kuwa kale midhmidhka dhinaca rara ayaa markaa kuwa kale qabanayaan waasiciyada kale aynu sheegaynaa laakiin waasica koowaad aynu u baahanay waa kan ah ilaahay weynidiisa iyo muraaqabadiisa iyo xishoodka aynu ka xishoonaynaa inay badato markaasuu camalkeenu fiicnaanaya sala allahuma calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin